Saadaasha mustaqbalka Baba Vanga laga soo bilaabo 2025 isku dhacyada si loo dhammaystiro xukunka muslimiinta 2043. Taariikhda oo dhan, ashkhaastu waxay sheeganayaan inay leeyihiin karti ay ku saadaaliyaan mustaqbalka, iyagoo siinaya aragtiyo ku saabsan waxa soo socda ee aadanaha. Tirooyinkan waxaa ka mid ah Baba Vanga, oo ah indhoole Bulgarian clairvoyant ah, ayaa u taagan saadaasheeda tirada badan ee soo jiidatay dareenka dadweynaha. Iyada oo wax sii sheegyadeedu ay sii wadaan xiisaha iyo doodaha, qaar badan ayaa loo daayay inay ka fikiraan saamaynta aragtideeda, gaar ahaan marka aynu ku soo dhowaanno sannadaha xasaasiga ah ee ay saadaalisay kacdoono dhici kara. Waxa ay sheegtay in aakhiro ay bilaaban karto horaanta sannadka 2025, taas oo walaac xooggan ku abuurtay taageerayaasheeda iyo dadweynaha guud ahaan. Welwelka laga qabo xiisadaha juqraafiyeed ee socda. Waa tuma Baba Vanga. Waxa ay dhalatay 1911kii. Baba Vanga, oo magaceeda oo dhan yahay Vangelia Bandeva Gushterova, waxa ay lumisay aragga iyada oo 2 jir ah, kadib markii ay qabsatay duufaan. Dhacdadan naxdinta leh kadib, waxaa la sheegay inay yeelatay awoodo garasho oo u horseeday inay caan ku noqoto wax sii sheegyadeeda. Vanga waxay nolosheeda inteeda badan ku qaadatay Bulgaria, waxaana loo yaqaan Nostradamus of the Balkans. Inkasta oo ay dhimatay 1996, dhaxalkeeda sheegashada waa ay sii jirtaa, iyada oo fasiraado cusub oo saadaalinteeda ah ay si joogto ah u soo baxayaan. Saadaasheedii hore kee rumoobay? Baba Vanga ayaa la sheegay inay saadaalisi dhowr dhacdo oo muhiim ah, kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah ay soo jiiteen dareenka saxnimadooda. Qaar ka mid ah saadaalinteeda ugu caansan waxaa ka mid ah Dagaalkii Labaad ee Adduunka. Vanga ayaa la sheegay inay saadaalisay burburka iyo khasaaraha weyn ee nolosha inta lagu jiro iska horimaadkan caalamiga ah. Burburkii Midowgii Sofiyeeti waxay sii saadaalisay burburkii USSR muddo dheer ka hor inta uusan noqon mid dhab ah 1991, iyadoo si sax ah u saadaalisay dhammaadka taliskii shuuciga. Masiibada Chernobyl sannadkii 1986. Vanga ayaa la sheegay inay saadaalisay masiibada nukliyeerka ee Chernobyl, iyada oo ku dartay liiskeeda sii kordhaysa ee saadaalinta guusha leh. Dhimashada Stalin. Vanga waxay si sax ah u saadaalisay dhimashada hogaamiyihii Soofiyeedka Joseph Stalin, iyada oo sii xoojinaysa sumcadeeda nebiyadeeda. Kurska Submarine musiibo sannadkii 2000, waxay sheegtay masiibo ku lug leh Kurska ka hor intaanay quusin Ruushku, taas oo dad badani u fasirteen dhacdada kadib. Weeraradii Sebtembar 11. Vanga ayaa lagu soo waramayaa inuu saadaaliyey in shimbiraha birta ah ay weerari doonaan Ameerika, taas oo dad badan ay aaminsan yihiin inay tixraacayaan diyaaradihii loo adeegsaday weeraradii 9/11 ee daarihii Twin ee New York. 2004 tsunami. Waxay sidoo kale saadaalisay tsunami Gabaan ee badweynta Hindiya, taasoo keentay khasaare la taaban karo oo nolosha ah oo ka dhacay dalal badan. 1985 dhulgariir. Meel u dhow gurigeeda, Vanga waxay saadaalisay dhulgariir ka dhacay waqooyiga Bulgaria oo dhacay 1985. Saadaasha Baba Vanga waxay kor u qaadaysaa welwelka ku saabsan dhibaatooyinka soo socda iyo isbeddelada bulshada. Inaad horay u sii eegto, Baba Vanga saadaasha mustaqbalka waxay bixinaysaa sawir xun. Waxay ku andacoonaysaa in dhammaadka dunidu uu bilaabmayo 2025, inkasta oo ay ku adkaysanayso in aan bini'aadmigu si buuxda u dabargoyn ilaa 2079. Marka laga soo tago colaadaha la saadaaliyey ee Yurub, waxay saadaalisay in 2043 Yurub ay ku dhici doonto xukunka muslimiinta, iyo 2076 xukunka shuucigu waxay soo noqon doonaa caalamka. Vanga waxay ku nuuxnuuxsaday in dunidu ay ugu dambayntii ku dhammaan doonto 2079 sababtoo ah dhacdo dabiici ah. Shaki ayaa weli ku saabsan wax sii sheegyada Baba Vanga, halka kuwa raacsan ay weli xiiso u qabaan saameyntooda. Inkasta oo qaar badan oo ka mid ah saadaasha hore ee Baba Vanga ay u muuqdeen kuwa rumoobay, haddana dabeecadda aan la hubin iyo qarsoodiga ah ee wax sii sheegyadeedu waxay keenaysaa shaki dadka qaarkood. Dhaleecayntu waxay ku doodayaan in saadaasheeda ay inta badan tahay mid aan caddayn oo u furan in la fasiro, iyada oo caddayntu ay soo baxayso keliya kadib dhacdooyinka dhacay. Intaa waxaa dheer, in badan oo ka mid ah aragtideeda la malaynayo waa sheeko la yaab leh oo lagu faafiyey xisaabaadka gacan labaadka ah, taas oo horseedaysa su'aalo ku saabsan saxnaanta caddaynteeda. Iyadoo ay taasi jirto, shakigan ayaa saadaasha Baba Vanga waxay sii wadaysaa inay la soo baxdo dhegaystayaal ballaadhan oo kicinaysa doodaha ku saabsan mustaqbalka aadanaha iyo cawaaqibka ka dhalan kara isku dhacyada juqraafiyeed ee hadda jira.
saadaasha naxdinta leh ee 2.25 waxay u adeegtaa xasuusin jilicsanaanta nabadda iyo xasiloonnida caalamiga ah, taasoo kicinaysa dib u milicsiga caqabadaha socda ee bani'aadamku wajahayo, xiisadaha juqraafiyeed, xaalufka deegaanka, iyo xasiloonnida bulshada. sida dunidu ula daalaa dhacayso hubanti la'aan, digniinaha fanga waxay nagu xujeeyaan inaan tixgelinno muhiimadda feejignaanta, diblomaasiyadda, iyo iskaashiga caalamiga ah. wakhtiga ayaa sheegi doona haddii ay saadaasheeda rumoobayso, laakiin waxay shaki la'aan ku sii shidayaan mala awaalka iyo kicinta fekerka mustaqbalka ee aan maanta samaynayno.